barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan wixii wararkaasi ku soo kordha hadduu aalidmo wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa qodobadeena kale ayaan sii gudagelaynaa golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka ayaa taageeray mowqifkii dowladda ee ahaa inaanay cusboonaysiin doonin heshiiska gaarka ee Somaliland ay deeq-bixiyaashu kula macaamilayeen heshiiskaasi oo lagu taageerayay Somaliland qoondo gaarna lagu siinayay waxaana dadka qaar ay siyaabo kala duwan arrintaasi uga hadleen iyadoo dowladdu aanay weli ka jawaabin warqadii jawaabta ahayd ay u soo direen beesha caalamka oo ay ku sheegeen inaanay suurtagal ahayn inay xilligan joojiyaan arrintan waxaa ku jira qadka Skype-ka ee London Daahir Cabdi Jaamac oo soo noqday gudoomiyihii madasha Somaliland ama Somaliland Forum ee kana mid ah aqoon-yahanada Somaliland Daahir haddii aad imaqli karto sideed u aragtaa marka hore in dowladda Soomaaliya ay diido inay cusboonaysiiso heshiiskan gaarka ah ee Somaliland deeq-bixiyaashu ay ku caawinayeen Assalaamu alaykum Cabdullaahi كله حنوار كائن قشة خدية هي أو محل توي لكن أنا هاين أهل الجوجل هنيكو عصب لكن واحد سويت هجنايو لما يتم كي بلود يقول الديسي سياسة دولة الفدرالية في الصومالية يلا حريدا واحد من أجرس في الصوماليلاند أي هو مركز كلا دجال الله منسو أهل كوي يلا حريدا يمكن بدي هاي طبعا ندخل هذا نوعية هاي دلين عيه هو مركز هو اللي يقول شيء عن لسكلا دجال الله من إنه دجال لنا عن الصعودة وياهي واي لكن ظاهر طبعا دولته waxay sheegtay inaanay diidanayn in Somaliland la caawiyo la taageero diyaarna ay u tahay laakiin aanay ogolayn in hanaankii hawshan loo mareeyo uu sii socdo sabab la xiriira in maamul goboleedyada kale dalka ay ka biyadiideen arrintaasi marka miyaanay dawladda Soomaaliya loogu garaabi karin arrinta Cabdullaahi ma loogu garaabi karo sababtu waxa weeyaan horta waa marmarsiyo arrinkan maamul goboleedyada cawdayo yiri maxay tooy annagana gaar wax noo sii Somaliland la siiyo hadii ay jirtaba oo maxay tooy dawladda federaalkuna ay taaq bashay sida muuqatana waa aqbasho ay marmarsiyo ka dhigatay runtii waa arrin aad u fool xun sababta waxay simaysaa Somaliland iyo ay simaysaa maamul goboleedyada halka Soomaalidii markii wixii Republic of Somalia loo oran jiray ay ahayd Somaliland iyo Soomaaliya isu tagtay ayaa dawladda federaalku imika waxay ku leedahay Somaliland laba manihin dawladdu isu tagay waxa tihiin dawlad goboleed kamida Jubaland sida Jubaland oo kale aad u simantihiin taasi waxay sii fogeynaysaa midnimadii ay afka ka sheegi jirtay dawladda Soomaaliya iyo wada hadaladii loo wada hadlayay labada dawladoodii la lahaa wax la soo dhaweeyo oo in effect waxa ay leedahay waxa weeyaan waxa tihiin maamul goboleed la siman Jubaland iyo maamul goboleedyada yaryar la sameeyay marka arrin macquul ma aha waana arrin ay dawladda ka riixayso dawladda federaalku ma jiro maamul goboleed cawday ama wax sheegtay marka ma kula tahay hadii mowqifkan dawladdu ku adkaysato in beesha caalamku ay aqbali doonto isla markaana ay ku gowracan tahay go'aanka dawladda dhexe ee Soomaaliya ee la aqoonsan yahay horta laba mid baa dhacaysa sanad weyn misal number 1 dawlad number 1 beesha caalamku ma aqbalayso oo wax macquul ah oo aqbali kartaan ahayn sida aad wax ku sheegtayna warqadeedu ku diiday number 2 kaba soo qaad in aqbasho maxay tooy beesha caalamku oo dhaqaalaha wixii la siinayo Somaliland la soo marin dhinaca dawladda federaalka adnoo dugtaana waan ogahay beesha caalamkuna oo ogto intay qaado dhaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ma maamuli karayso Somaliland xaqiiqo fulin karto sida ogsoon tahay xamar iyo agagaarkeeda laga yaabo afgooyanaanay gaadhin mararka qaar wax ka fulin kareen la talon inay Somaliland gaadho marka beesha caalamkuna yeeli mayso talabaadna hadday toodo raacno la yeelana wax suulo galayaan ahaan macquul ah ayaan ahay way dawladda ogtahay adduunyadu waxay aqoonsan yihiin in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay tahay tan Soomaaliya ka jirta Somaliland dabcan muddo raadinaysa in la aqoonsado uma aanay suuro gelin welina caalamku qayb Soomaaliya ka mid inay tahay oo aqoonsan yihiin marka ma waxaad leedahay caalamku waxay diidi karaan go'aankan dawladda dhexe ee Soomaaliya Somaliland dabcan lama aqoonsana laakiin tiise si de facto status waxa la yiraahdo oo aqoonsi heer ka hooseeya ah baa loo dhaqmayay ilaa intii ugu dambeysay
iminkana international community de facto statuskaasay kula dhaqantaa somaliland iyo soomaaliya toonna beesha caalamka waxba uma yeedhiyaan awoodii wax ugu yeedhiyaana ma laha waa wax lagala tashanayo dowladda soomaaliya oo lagu ixtiraamayay bay ahayd maadaama oo aan somaliland wali la aqoonsan marka ay diidda dowladda soomaaliya keliya waxa dhacaysa sidii maalintii dhaweyta dhacday ee dowladda imaaraadka ay tiri ka hor joogso horumarkii laga sameynayay berbera marka wixii macquul ah in la isla gartay ee yacni horba la fulin karayana dabcan beesha caalamku laakiin haddii soo istaagto dowladda federaalku annagana la aqoonsan yahay somaliland waxba lagama qaban karo waxba lagama dhisi karo iyadoo annaga nala soo maro mooye iyadiina aan waxba ka fulin karayn dee macquul ma aha legally haddii laga hadlayo waa ta la aqoonsan yahay laakiin somalilandna iyadoon la aqoonsan haddii saan u sheegay de facto status baa haysataa waxaa laleeyahay daahir dabcan somaliland caqabadaha ka jira waxaa ka mid ah in qoondadan la siiyey ee deeqbixiyaashu siiyaan aanay u maareynin sidii loogu talagalay oo gobollada qaar aysan u sinayn meelaha qaarna loo badiyey meelaha qaarna loo yareeyey oo taa qudheeda ay tahay cadaalad darro loo baahan yahay in lagu ilaaliyo oo lagu kontaroolo miyaanay arrintaa kuu muuqan cabdullaahi cidda taa tidhi maaha beesha caalamka waxa weeyaan dowladda federaalka weeye dowladda federaalkuna iyadoon ka warhayn somaliland sida wax loo maamuliyo caawimaheedu halkay marto dowladda federaalku waxaanay ka warhayn garoowe waxa ka dhacay ama baydhabo letaloon markaa kama warhayso somalilandna se u maamusho caawimaha la siiyo waxaa kala xisaabtanta beesha caalamka sida ay ugula xisaabtanto dowladda federaalka oo markaa haddii wax la isdaba mariyey ama cadaalad darro jirto cidda sheegi kartaa markaa waa beesha caalamka ee maaha dowladda federaalka taasina waa marmarsiyo weeye ay ugu soo gabanayso waan malaynaya dowladda federaalka waaya haddii ugu dambayn ay aqbasho caalamku ama beesha caalamku go-aanka dowladda dhexe ay ogolaadaan maxaa dhici kara waa saan hore kugu sheegayo horta macquul ma muuqato laakiin haddaynu kaba soo qaadnaba saad u dhigtay inay aqbalaanba maxaa dhici karaya somaliland way ka maarmaysaa waanay ka maarmi karaysaa caawimada beesha caalamka oo iminka doorashadii ugu dambeysay ka dhacday doorashadii madaxweynahada deeqdii beesha caalamku siin jirta way ka maarantay iyadaa isku fillay laakiin waxaa dhacaysa dhaqaalihii somaliland la siin jiray marka dowladda federaalka la siiyo ilaan somaliland gaadhsiin mayso waxbana kagama qaban karaysee inay musuq maasuq orle iyo sidii ay walba samayn jirtay iyadu isku fullaysiiso halkaana lagu sii kala fogaado wada hadalladii socday ee somaliland iyo soomaaliyana halkaa ku burburaan dowladda federaalkuna kusii dhiirato colaadahan iminka ay wado ee dhinac dhaqaale leh ee dhinac military leh dhinaca dhaqaalaha waxaa ka mid a tan iminka beeskii ku jiidaysay boortkii berbera tan ay arrinkan dhaqaalaha ku diidayso dhinac ciidamii militarina dagaalkan kale ay wado iminka ee puntland u adeegsanayso keliya haddii taa caalamku maanta ka yeelo waxay u fududaynaysaa inay sii dhiirato oo ay dagaalkan maanta ay somaliland ku wato ay kusii dhiirato daahir cabdi jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada somaliland soona noqday guddoomiyihii madasha somaliland forum oo qadka escape-ka ee london iigu warramaya